ganacsatada ayaa kelmadooda ku sii soconaya Cabdikariin Maxamed Iid gudoomiyaha Talasom ayaanu dhiibay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wasiirada marti sharafta ganacsatada haldoorka ka soo qayb galay xafladan dhagax dhigga suuqa cusub ee Waaheen waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh runtii farxad ayay ii tahay inaan ka soo qayb galo dhagax dhiggan laba dareen isbarbardhigooda runtii aad buu cajaa'ib lahaa habeenkii ay gubanaysay iyo maanta oo aynu suuq cusub dhismihii cusbaana uu socdo suuq cusub in aynu ka yegleelayno laba farxadood iyo laba naxdinood oo isbarbar yaala ayay ahayd ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dhismaha quruxda badan leh si wanaagsan uu inoogu dhamaystirmo waan ognahay oo ubad dhaxaad waxay u ahayd xarun ganacsi mandaqada oo dhan waanan hubaa inay ku soo noqon doonto sunanka noloshana ganacsiga iska sidaas oo khasaare iyo faa'iido labadaba aleh ilaahay waxaan ka rajeynayaa dadkii halkan ay ka gubatay cawadna khayr qaba inuu ka siiyo intii ay ka heli jireen iyo in ka badanna ay ka helaan annaguna insha Allah bangi ahaan wixii tanziilaada ee fududeynayna u sameynayna insha Allah aanu u sameyno oo u dadaalo oo ugu talagalay qorshayaal insha Allah soo kabi doona dalka sidii odaygii iga horeeyay ee walaalkay ahaa halkan uu ka sheegay 70% waa dhalinyaro mustaqbal runtii weyn ayay leeyihiin waxaynu ku soo nabadii caana maalayna ma ahayn xafiisyo laga shaqeynayay aqliya tijaariya ganacsi waa kaaka wax laga sameeyaa waxay yiraahdaan maamaha reer magaalku ay sameeyeen waxa kamid ah intuu baayac mushtarku siiyo bahda kuma siiso macnaheedu waxa looga jeedaa waxa weeyaan ganacsigu wuxuu ku siiyo cid ku siin karta ma jirto marka insha Allah waxaan rajaynaynaa jiilashii bedeli lahaa raggii oo halka ka tirinayay ee faraha badnaa oo odayaal badan oo kale ay kamid ahaayeen oo dad suuqa marka sida loo soo eego Xaaji Cali Guhaad Cali Mataan Xaaji Cali Bootaan maxaan ku dhahay Xaaji Cabdiraxmaan Garyare dawaalo badnaa raggii bedeli lahaa magacyadaasi iyo dumarkiiba waa nool yihiin insha Allah waxaan rajaynayaa mandaqada halkeenu kaga jiray mid la midana inaynu kaga jiri doono insha Allah aad iyo aad baad idin salaamaya waan bogaadinayaa cidii runtii udub dhaxaadka u ahayd had iyo habeenba gudiyadii iyo xukuumadda ka shaqeynaysay inay inoo suurta gasho arrinkan aynu maanta u fadhino ilaahayna waxaan rajaynayaa inta ka hadhay inuu si wanaagsan oo qurux badan inoogu dhamaystirmo assalaamu calaykum